سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعا walaaladu soo qoreen oo ah al-i'jaaz al-ilmi fi al-Qur'an, ama nooc i'jaazka ka mid ah oo waagan dambe culimadu ay aad uga waramaan. i'jaazku marka i'jaaz laga waramayo waa kalima mushtaqa min al-'ajz, wal-'ajz ad-da'f wa 'adam al-qudra. waa kelmad laga soo dhambashay ama ka timi erayga al-'ajz. cajsiguna waa dacfi. acjaza yani cajzu u nisbeeya ama itaaldarridiisuu tusay. almucjisa isilaax alculamaa waxay ku tilmaamaan inuu yahay amrun khaariq lilcaada maqruunun biاtaxaddi saalimun min almucaarada. icjaaska waxaa la yidhahdaa bay idhahdeen waa arrin khaariq lilcaada ah, wixii la yaqaanay ka baxsan markaynu mucjiso ka warramayno, laakiin maqruun bitaxaddi ay la socoto goodi la leeyahay cara la kaalaya waxaasi oo kale, isla markaana saalim min almucaarada. kaas baa mucjiso la yidhahdaa fi luga. marka aynu tilmaamayno icjaaz alqur'aan, macnaha looga dan leeyay waxa weeyaan bay culimmadu leeyihiin icjaaz alqur'aan annaasa an yaatuu bimili. waa qur'aanka oo la leeyahay wuxuu cajsi gelinayaa bini aadamku inay la yimaadaan isagoo kale, yani nisbat alcajzi ilayhim. mawduuca kan markaynu hoos u sii gallo icjaazka ku saabsisan, qur'aanku waa mucjis ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu talagalay inuu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi caddayntiisii uu noqdo. laakiin markaynu leenahay al-icjaaz alcilmi, waxay culammadu inta badan uga jeedaan waxyaabaha uu qur'aanku sugay ama waxyigu sugay 1400 sannadood ka hor, laakiin barashada bini aadamka iyo aqoonta bini aadame kobcaysa ay haatan un ogaatay wakhtiga kan ama imikuun la ogaaday. waxay caddayn u tahay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi risaaladiisii. si kale haddaynu u tilmaamno waxaynu odhan karnaa baabkani mala waa baabkii culammadii hore ay qori jireen ee odhan jireen dalaa'il nubuwa. yani culammadii hore kutub aad u tiro badan bay leeyihiin oo la yidhahdo dalaa'il nubuwa, waxyaabaha nebinimada nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh caddaynaya ay kaga warramayaan. halka kan waxaynu waxoogaa ka tilmaami doonaa mas'alada tan oo ah waxyaabaha caddaynaya nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh risaaladiisa. waayo nebi kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala qoom u soo diro mucjizaa la siin jiray. intii badnaydna qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa ambiyadii hore mucjisada la siiyey iyo risaalada la siiyey labay kale ahaan jireen. risaalada waxay ahaan jirtay waxyi loo soo dhiibay nebiga. inuu nebi yahay waxaa caddaynayaana shay risaalada ka baxsan bay ahayd, oo inta badan shay maxsuusa, shay tanjabul oo la taaban kara ah. maalan nebi muuse salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa la soo siiyey maxay? casaa muusa. inuu nebi yahay ulbuu dhulka dhigayay oo intay bahal isu beddesho wax walba oo sixir iyo waxay sameeyeen oo dhan cunaysay. idan mucjisadiisu waxay ahayd ushatan
iyo calaamadaha kale ee sagaalka ah ee qur-aanku uu tilmaamayo waxay ahayn mucjisaadkii la soo siiyey gacantu halkan gelinaya iyadoo midab kale nooc kale bay soo baxaysay waa mucjisaad xisi oo la soo siiyey nabiyullaahi muusa nabi ciise salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa la soo siiyey mucjisa ixyaa'i ilmawta kuwa dhintay inuu yidhaahda biidni illaahi ku kaco mid ay naftuba ka baxday uu dib u soo kaco waxaa la soo siiyey abras mid aan indhaba ku dhalan ama indhala inuu ilaahay idamkii ku indhafiiqiyo oo indhuhu ugu baxaan waxaa la soo siiyey inuu abras daweeyo waxaas waxay ahayd mucjisaad maadiya mucjisaad xisiya mucjisaad la arki karo waxyigiina dhan baa loo soo siiyey ay wadeen aakhiru risaala oo nabi muxameda salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay wuxuu soo siiyey sida uu imaamu suyuuti tilmaamayo mucjiza caqliya aw mucjiza cilmiya aw ayu shayin tusamaa waxa doonta magacow mucjizo cilmiya waxay culammadu yidhahdeen mucjisaadka ambiyada la siinaya mucjizo waliba waxay u dhigmaysay inta badan casrigaasi wixii dadku haystay ama aqoomihii yaallay nabi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa la soo siiyey mucjiso cilmi ah oo risaalada loo soo dhiibay lafteeda ayaa caddaynaysa mucjisadiisiina ah si kale haddaanu tilmaamno qur'aanka bilafdihi wa bayaanih bimacnaah labadaba mucjis buu ku yihi qur-aanku erayadiisa iyo weedhiisa iyo tarkiibkiisa luqawiga iyo qaabka uu isu saaran yahay waa mucjis carab oo bayaan taqaanay ama af carabi ku faanaysa iyo adab tiro badan oo casrigaasi uu ahaa casri inta isu timaado fagaarayaar adabka la ysugu faano lahayd fagaare carab oo dhammi inta isugu timaado markaasi la isu gabay dhigto reer waliba ninka ugu gabayaasan iyo ninka ugu aftahansane khudbad jeedin kara buu keeni jiray dabeetana waxaa la isu dhigan jiray reerkii gabayga iyo khudbadda qaata marka wakhti bay ahayd casri carabi ay isugu faanto afka iyo bayaankiisa iyo fasaaxadiisa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu keenay gabay kasta iyo fasaaxo kasta iyo balaaqo kasta ka icjaas badan ka yaab badan leh binadmi sida uu qoran yahay wuxuu kaloo qur-aanku mucjis ku yahay bimacnaah waxa uu sido icjaas cilmiya baa ku jira mid taariikhiya baa ku jira taariikho badan waanu nebi maxamed joogin waanu war ka haynin oo xidhiidh la lahayn ayuu ka warramay siduu uga warramay bay u dhacday taariikho soo socduu ka warramay xataa wakhtiga hadda markaa la joogay waxaan laba ogayn bal ee waxaan ku jirin saadaasha waxaa jira wax bini aadamku uu saadaalin karo iyo waxaanu saadaalin karin oo aanu ka fakeri karin wuxuu ka warramay waxyaaba aan laba saadaalin karin oo mustaqbalka dhici doona oo sidii uu uga warramay u dhacay